maayirka Hargeysa oo ka badbaaday dil qorshaysnaa xilli aan loogu talagelin inuu noolaado. Sheekh Umal oo meesha ka saaray inay jirtay doodda ah inay lacag u ururiyeen isaga iyo culimada Nairobi dagaalkii bariga Sool oo ay qayb ka ahaayeen. Nairobi waxaa laga ururiyay 1.8 milyan warka isaga ihi war anaga na khusay. ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo gaadhay tuulada Fiqi-Fuliye. kusoo dhawow daawashada muuqaalka oo dhammaystiran iyo warbixinteenan muuqaalka la ingiray kana mid noqo asxaabta sida joogtada ugu xidhan. maqal iyo dharaarsiga marna maanku kama guro mana laha waxiine waa madal xoro furan la jaanqaad Durriya Philips. ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa u ruqaansaday tuulada Fiqi-Fuliye taasoo ubuuc u ahayd baryihii ugu dambeeyay qulqulatooyinka markan xasiloonida degmada Cerigaabe caasimadda gobolka Sanaag sida weyn uga soo horjeeday ahaydna halka xamaanta iyo xamaasta ay dhigtaan ururada sida weyn u diidan markan xanaqaadka Jamhuuriyadda Somaliland. ciidanka qaranka ayaa caawa ku gaalabixiyay afarta gees ee tuuladaas waxaana u muuqataa safarkii ugu horreeyay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland tan iyo markii ay bilaabatay colaadaasi markan ay u kacaan halka dhawaan ayay ahayd ciidanku markii ay si buuxda gacanta ugu dhigeen saldhiyadoodii waaweynaana ka bileeyeen degmada Jiidali ee gobolka Sanaag. tanina waxay qayb ka tahay dadaalada ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ugu jiraan soo celinta xasiloonida iyo kala dambeynta guud ee gobolka iyo guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland waana qayb ka mid ah dadaaladooda. siyaasiga caanka ee waran cadde kaasoo soo noqday wasiiro kala duwan xilal kala duwanna ka soo qabtay xukuumadda kulmiye ilaa iyo udub kan oo ah mid ku caan baxay mas'uuliyad iyo odaynimo kana mid ah odayaasha reer Hargeysa ayaa markan ka qayb galay xaflad ay lahaayeen bah dhaqan iyo bah ooleed ama se ardaa ama se isku reer oo markan doonayay masiirkooda siyaasadeed iyagoo ah qoyskaasi sidii ay u jahan lahaayeen. bahdan ayaa markan uu kulmiyay kulankooda Mooge iyo inaan waran cadde iyo Mooge ayaa guud ahaan sida uu isagu inoo sheegi doono la isku yiraahdaa magac guud ardayda ay ka soo kala jeedaan markan yoolkooda siyaasadeed waxay u muuqataa inay ku kala reebayaan laba rin oo damac leh. hase ahaatee arrintaa ka hor waxa uu dhayda ka cadeeyay siyaasiga inaan waran cadde xilliyada ka mid ah inuu caasimad u fidiyay maayirka caasimadda Hargeysa una qalay neef wana siina neefka wana baridiisa isaguna aanu ka diidin xilliga balse uu ku xanuustay oo uu ku sakraaday kadibna uu ka dacweeyay in Mooge oo uu sheegay madaxweynihii hore Somaliland Muuse Biixi inuu waran cadde siiyay neefka baridiisa. haatayna waran cadde uu xilliga ku jawaabay inaanu isagu xilliga ugu talagelinba inuu noolaado maadaama dhaqdhaqaaq badan oo siyaasiya uu sameeyay wiilka dhalinyarada iyo waa sida uu hadalka u dhigay. inkastoo madasha hadalka laga lahaa uu muuqday mid kaftana haddana waxa xaqiiq ah oo ay isku marxaati fureen maayirka caasimadda Cabdikariin Axmed Mooge iyo wasiirkii hore arrimaha gudaha la taliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo ninka libaxyada ku haysta caasimadda inaan waran cadde markan inay arrintaasi xaqiiq ahayd waana kan inaan waran cadde oo qodobo yaryar ka taabanaya arrintaas iyo in Mooge laftigiisa marxaati furaya. maayirka wuxuu yiri madaxweyne anigu kalluunkan cunka karin maayo habeen saddexaadkii ayuu cali waran cadde bariis iyo saddex cashaan jiif markaasuu yiri wardiina ku caloosheedno kala ma lahaay baridaha siinin buu yiri. dabadna waxaan ku yiri madaxweyne yarka waan ka shakeeyo waatay ballantood in adiga kugu xigo madaxweynenimada markii yarka wuxuu la soo baxay baan firfircooni halisa dabadna waan ka shakeeyo noolaadaba ugu baan tala geline uu dhimo waayay baan ku yiri inta yiri midna kuma darin midna kamu reebin waa saasay ahayd kaftanku saasuu ahaa wuxuu ilaaway ma jirto wuxuu ku daray ma jirto waxaan ka baqanayaa anoo cali wax la jecel in xisbiyadeena ma wajiday mako arinku inuu waqtigu dheeraada ka baqanayaa haweeney horta haddii ay horta bahag rasmi isla inagu keeni qaataaba waa keeni kale laakiin in yaro waxay leedahay taariikhasi muxuu ahay arrinta madaxtinimada ama madaxweynenimada bahag rays muddo soo socotay muddada waxay saynay aniga iyo maayirka horta cid kale saddexaad keenina. Sheekh Umal oo ka mid ah culimada fadhiisinkoodu yahay magaalada Nairobi
ayaa si weyn uga gilgishay war dhowaan soo baxay kaasoo muujinayay markan inay qayb ka ahaayeen colaadii gobolka Sool ka dhacday gaar ahaan degmada Laascaanood ee bariga Sool markana ay dhaqaale iyo deeq ku ururiyeen sidii Somaliland goobta looga saari lahaa laguna dagaalami lahaa sida uu xaqiijiyay mid ka mid ah minbarada iyo wadaadada lagu yaqaan kooxdu horjoogaha uu yahay Sheekh Umal markan waxa uu soo fadhiistay Sheekh Umal isagoo arrinta beeninaya waxaanu sheegay inay jirtay lacag ay ururiyeen balse lacagta ay ururiyeen aanay qayb ka ahayn colaadii iyo dagaalka xilliga lagu jiray Somaliland ay qayb ka ahayd sidii dadkii ka barakacay Laascaanood wax loogu qaban lahaa $1,800,000 aanay ururin ee ahayd $100,000 oo ay masaajidada uga kaceen taasna uu cadeynteedii hayo dhanka kalena uu beeninayo hadallada wadaadkaasi yiri waxaanu meesha ka saaray in wadaadkaasi kooxdaada ka tirsan yahay oo uu ka tagay bari hore ictisaab markana aan lagu eedeyn karin yaga inuu qayb ka yahay waxa uu Sheekh Umal sheegay lacagta ay ururiyeen iyagu iyo inaanay isqusaynin lacagta xilligan lagu xuqaya waana kan isagoo ka hadlaya arrimahaas Nairobi waxa laga ururiyay 1.8 million warka isaga ihi war anaga na khuseeyo ma aha culimada reer Nairobi-na ma khuseeyo waxay qabteenna ma khuseeyo xaqiiqada arrintaana doonaya inaan idin sheego si aydan ugu kadsoomin intii ku kadsoontayna ay uga toobad keento Ilaahay uga soo noqoto xaqiiqadu waxay ahayd markii uu dhacay dagaalkii Laascaanood ayaa waxa dhacday dad badan oo qaxay baa jiray oo geedaha hoostooda yaalay oo banaanada daadsanaa oo caruur lahaa oo dumar lahaa oo muxuu ahay ayaa jiray culimadu marka aniga oday u ahaa culimada Soomaaliyeed ee Nairobi joogtana inta badan way ku jireen oo qayb bay ka ahaayeen waxa la isu xilqaamay marka in ummadaasi loo gurmado banaanka daadsan ee tabaalaysan ee dayacan wixii laga qaban karo waajibkanaga u istaagno markaan u istaagnay oo masaajidii iyo ganacsatadii aad aan u dhaxmarnay lacagta noo soo ururtay waxay ahayd $100,000 $100,000 markaan ururinay ayaa waxaan ka baqnay haddaan sii dhiibno oo aan dirno inay gacan kale ku dhacdo meeshii dadku ula baxeen annaguna aan ku talagalay meel aan ahayn inay ku dhacdo markaas waxaan sameynay waxaan dirnay 3 ka mid ah culimadii wax ururinaysay ayaan dirnay oo lacagtii qaaday 3 nin waxa weeye Sheekh Maxamed Uthman Calasow iyo Sharif Maxamed Sharif Dawiil Sheekh Sharif Dawiil iyo Sheekh Cabdirazaq Jiir 3daas dirnay 3dooda 2 ka mid ah reeraha deegaamada degamaba ahaba waxaan ugu sii dhiibnay lacagtaas in ay ku simaan dadkii tabaalaysnaayo loogu talagalay ummadana aan uga qaadnay way tageen ayaga gacantooda ku geeyay gacantooda ku qaybiyay dadkii ku gaarsiiyay kadibna way soo noqdeen xilligaana sawiradoodii iyagoo wixii qaybinaya muxuu ahay social media ay ka buuxaan culimadaasaan dirnay oo gaarsiiyay taa waxay la mid ahayd arrimo fara badan oo kaleeto oo aanu muxuu ahay markay saasoo kale u dhacaan ummadda Soomaaliyeed meel walba aanu maxaa u gurman jirnay bay ka mid tahay Muqdisho qaraxyadeedii muxuu ahay Baydhabo iyo abaarihii Soomaaliya oo dhan ku habsaday Hiiraan iyo fatahaadihii ka dhacay duufaanadii bari muxuu ahay suuqii gubtay Hargeysa abaarihii ka horeeyay sidoo kale waqooyi bari iyo ka dhacay meelo far badan ee Soomaaliland iyo meelo badan ka dhacay iyo Soomaaliya aaday noo ahayd in aan muxuu ahay aan Soomaalida aanu dhibaatooyinkooda ka qayb qaadano reer Nairobi culimadeeda iyo ganacsateedu ay ka qayb qaataan tiibay tanna ka mid ahayd anaga kelinaguma ahayn xamar baa wax looga soo diray oo u soo gurmatay Soomaalida qurbaha u soo gurmatay oo wax u soo dirtay annaguna waxaan qayb ka ahayn gurmadka guud ee ummadda Soomaaliyeed isu gurmato si kastoo siyaasad isugu khilaafsan tahay si kastoo Soomaalidu isu dilayso si kastoo qabaa'ilahan isu leeynayso markay timaado dadku inay tabaalaysan yihiin oo dhibaato timaado ummadda Soomaaliyeed waa dad wada dhashay waa dad walaal waa dad isu gurmada arrintaas ay marka wax way hawshaasi ka duuleysay sidaasaana anaga dowrkanagu ahaa ummadda Soomaaliyeed ee gurmanaysan qayb ka ahayn arinku marka sidaas waxa wixii anaga aan qabanay waxa kaloo jiray
xilliga annaga aan wax uruurinayno dadka tabaalaysan aan wax uruurinaynay magaalada Nairobi waxaa kaloo ka socday dee beelahaasi dhulkaa dega iyo ciddii ayaga marka ay wax ka heli karaan ayay iyaguna abaabul wadeen lacagay uruurinayeen hawl bay wadeen isku shaqo maanaan ahayn bal waxay nagu eedeen oo ay nagu eedeeyeen qaarna ilaa hadda ayna nagu salaaminba maad barnaamijkan muxuu ahay wax uruurintiisa nagala qayb qaadataan wax la yaqaanayba ilaa haddana qaar baaba nagaga go-ayba arrintu noocaasay ahayd marka haddii marka waxa weeye wadaadku uu ula jeedo lacagta Nairobi laga uruuriyay 1.8 milyan ula jeedo tii ay qabaa'isha uruuriyeen hadda taasi waxa weeye hadduu qayb ka ahaa meesheeda waaye laakiin annagu tii aan uruurinay iyo qaabkaan u maamulay sidaasay ahayd muxuu ahay ilaahay wuxuu nagu ogyahayna waaye mana doonayna annaga inaanu wajina aanu ummadda tusno waji kalena muxuu ahay xilli kale iyo qaab kale ula dhaqanay laba wajiilanimo kuma shaqayno nalagumana yaqaano waxaa la yaab leh dadkan beenalayaasha social mediaha ka ganacsada waxyaalaha noocaas oo kale ah marka qaarkood harkiisa iyagoo saaraya hadalka wadaadka leh ictisaam waa kuwan oo ictisaam oo dagaal ka qayb qaatay oo ictisaam oo ka shifmay wax la yaab la waay wax aad iyo aad loo qariibsado way meesha maanta aan gaadhnay warwadaadkan xataa ictisaam ma aha oo muxuu ahay odayaashooda wuu ka tirsanaan jiray laakiin dhowr iyo 10 sano ka hor buu ka baxay haddana 20 sano ba gaarsiisnayn yani ma aha yani ururka hadduu xataa fardi ka mid ahaan lahaa waaba loo tiirin lahaa khalad ma aha xataa tiirintaas laakiin xataa ictisaam ma aha culimadii uruurisay yani Nairobi wax ka uruurisayna reer kaliya ma ahayn deegaan kaliya ma ahayn culimadii Soomaaliyeed ee Nairobi joogtay oo dhan ba hawsha uruurisay suurtagalna ma aha culimada Soomaaliyeed ayagoo qabaa'ishoodu kala duwan yihiin inay isku waafaqaan dagaal Soomaali dhexdeeda ka socday aynu qayb kamida dagaalka la galo wax la uruurino culimada Soomaaliyeed isku raaci mayso xataa qaar kamid haday rumaysan yihiin la isku raaci maayo suurtagalna ma sidaas daraadeed in hawshaasi qaabkaasi loo dhigo oo dadku rumaystaan oo media ay gasho oo comment laga bixiyo oo mid arsaaq uu ku raadsado waa wax aad looga yeeqsado waay laakiin kaligeed ma aha intaasoo la mid ah ayaa ka socota social media ka socda waxaan leeyahay marka yani dadkan waxaan ka shaqaystay sidaa u rogmaday baaba'ay akhlaaq ahaan iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo dadnimo ahaan iyo kulli baaba'ay kuwaasi waxaan leenahay Allah tabaaraka wa ta'ala Qur'aan Kariimka wuxuu ku leeyahay inma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah yani wax weeye been waxa abuurta kuwa aan Ilaahay rumaysnayn nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma idin sheega dadka kuwa ugu shar badan ma idin sheega waxay yiraahdaan noo sheeg rasuulka Ilaahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam al-masha'una bin-namima dadka isku dirdirka u socda oo ka shaqeeya inay dadka isku diraan al-mufsiduna bayna al-ahibba dad isjecel oo walaala dhexdooda fasaadiyo isku dira oo kala dila al-baghuna al-bura'a al-anat dad bari ah oo aan dambi lahayn oo waxaan shaqo ku lahayn ceeb u raadiya iyo dhibaato la raadsada oo magacood iyo sumcadooda dilaayay kuwaas way kuwa Ilaahay khalqigiisa iyo dadka ugu shar badan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxaan dhageysanayna marka dad noocaas oo akhlaaqdooda iyo dhaqankoodu nooca noqotay ayaan warkooda intaan qaadano oo wax isku soo xidhxidheen oo meesha soo saarteen aan wax moodno ayay diinteeni iyo akhlaaqdeeni ba fasaadinayaan ilaan ayagii baa fasaaday nin walbana wuxuu yahay wax ka siiya weel walbana wuxuu ku jiro dhididaa dadkaas way marka dadka waxaas abuuraya waxaan leeyahay marka walaalayaal arimaha noocaas oo kale laga digtoonaado hadii uu wadaad khaldamo oo isagu uu barnaamij qabiil uu qayb ka noqdo ama lacag muxuu ahay Soomaali isku dilayso uu qayb ka ururiyo ama uu tabandhiyo isagu sheegto taa iyada waa dambi isaga ku eg yani ma aha wala taziru waziratu wizra ukhra bu ilaahi leeyahay nafina naf kala dambigeeda ma qaado aniga wixii khaladan galaana iskale cidda kuma matalo wadaad kaleeto waxu galo isaga iskale ruuxu wixiisa isaga iskale
ilaa nabigu ka yidhahdo sal alay wasalam dembiga waalidku galay ilmihiisu xambaari maayo. yacni wax weeyaan qabiil ahaan laysuma qaada dembiga, sheekh iyo ardigiisu dembiga ma kala qaadaan, saaxiib baa leeyahay dembi looma kala qaado, urur baa lagu wada jira dembi looma kala qaado. dembiga ruuxa iska leh. haddii cid la eedeynayo khalad leedahay cidda hadalkaasu ka soo fulay oo hawshaa iska leh ha lagu eedeeyo, laakiin ummad kale yaan la maagin oo arrinkaa isaga ilaahay ha looga baqo. kuwan iyagu samaynaya ilaahay ka baq iyo aakharo iyo waa lagu cadaabi iyo ruuxan waa khalad, iyagu waa horey ka soo gudbeen, kuwaas meel kale lagu xisaabtami doonaa. laakiin dadka in uun diintooda xeerinaya aakharadooda baa waxaan leeyahay war waxaas iyo wax la mid ah oo maanta aada u badan oo ina haysta ha ku kadsoomina, ilaahayna ka baqa. yacni cidna wax yeeli mayno, been abuuradkaa iyo waxaas cidna wax ku yeeli mayso, adiguba isdhibaya, laa tadur ilaa nafsak. sidaas daraaddeed arrinkaasi arrin jira ma aha. annaguna waxaan yani waxway ururinay saasuu ahaa, waxyaalihii kalen horey ururinayna saasuu ahaa. ilaahay baana magan uga nahay inaan ummadda soomaaliya intaan wax ka ururino haddana iyadana dhiiggeeda ku daadino, iyada dhexeeda isku dirno, dhiig iyo khala aan ku gallo. ilaahay baan magan uga nahay, horeyna uma dhicin, haddana insha allahu tacaala allah naga xifdiyo, dadkaana allah hanuuniyo. ilaahay tabaaraka watacaala sharkooda iyo dhibkoodana ilaahay dhinacay naga mariyo. arrinku marka sidaas weeye. inaan caddeeyana waxaa kaliftay oo keentay xataa culimadii reer Nairobi oo arrintaa qabatay oo maalin dhaweed aan fadhi isugu nimidno arrin kale ka wada hadlaynay, warkani markuu soo baxay aad baa looga xumaaday. in marka wax weeye kelimo laga yidhaahdo laga jawaabo, yani wax way mudan tahay saan isleeyahay. haddii cid uun iga kaafin lahaydna dawaaban ka aamusi lahaa. jazaakum allahu khayran. intaasaan kaga jawaabaya Salaf Media. waa mahadsantihiin mar kale. yani waxa weeye su-aashaasi iyo caddaynteedu intaas weeye. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.